rumowda riyadii Jacayl lamaanayaasha oo geeri ku dhamaatay qisadan waxay dhexmartay Lydia iyo Joshua. Lydia xilli walba waxay ku riyoon jirtay inay guursato oo ay hesho qoys farxad ku nool iyadoo ku jirta gu'a 19 ama da'deedu ay tahay 19 sano jir. nasiib darro waxaa haleelay mid kamid ah cudurrada dilaaga waana kansar. goor uu gacalyaheeda Joshua ka codsaday guur way awoodi weysay inay ka aqbasho oo ay tiraahdo haa waan ogolahay inaan isguursano, balse hooyadeeda macaan iyo aabaha Lydia ayaa ka caawiyeen in gabadhooda ay jawaabto inkastoo ay qalin gashay. waxay Lydia u soo wadeen qolka nasashada ee isbitaalka iyadoo gacanta ku sidata ubaxyo casaan ah oo muujinaya dareenkeeda Jacayl. qolka waxaa ku sugnaa oo hareeyay qoyskeeda, saaxiibadeeda iyo kalkaaliyaal badan oo iyada la tacaalayay. kaliya lamaanayaasha muddo 1 sano ay is yaqaaneen oo xiriirkoodii Jacayl wada socday, balse Joshua ayaa mar walba Lydia u sameyn jiray wax walba oo farxad gelinaya iyada. Joshua iyo Lydia waxaad leedihiin waaye aragnimo dhanka isku soo dhawaanshaha. waxaad u qalantaan inaad midowdaan labadiina xaalad walba aad ku sugan tihiin. sidaa waxaa yiri odayga ku sugnaa goobta meherka. iyaga waxay ku sheegayaan inaad guursatay saaxiibkaaga wanaagsan. waa saaxiibteeda ugu wanaagsan. Joshua ayaa sidaas dhahay markay isguursadeen isaga iyo Lydia. intaas kadib waxaa loo dabaaldegay si qurux badan, si wada jir ayaa loo dareemay nolosha. wax badan ayaa Jacayl isku muujiyay habeenkaasi. nasiib xumo 2 maalin kadib maalinta Jacaylka adduunka farxadda meherka lamaanayaasha Lydia ayaa geeriyootay. balse waxaa u farxada Lydia inay ku geeriyootay iyadoo saaran laabta wiilka ay haminaysay nolosha inay la wadaagto. waxay geeriyootay iyadoo si weyn adduunka looga hadalhayo, yacni noqotay caan si aan caadi ahaynna waa loo jeclaaday. fadlan share, like, comment ha ka baqiilin mucaashaqiintan. waad ku mahadsan tahay walaal daawashada muuqaalkan. mar walba diyaar ayaan u nahay qancintaada. mahadsanidin.